maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 12aad waan mudane sharafta leh ee golaha wakiilada aan uga xog warmo warbixin ku saabsan xisaab xidhka miisaaniyadda dawladda dhexe ee 2016 kaasoo xafiiska antidhowrka guud ee qaranku uu hore ugu soo gudbiyay golaha wakiilada bishii 6aad oo aanan anigu joogin ama kaba tirsaneyn xafiiska antidhowrka qaranka oo aan ku soo biiray 5tii bishii 8aad ee 2017 xisaab xidhkan oo iga horreeyay waxaan ku sameeyay daraasaddan ku sameeyay waxaan eegay meelaha dhinaansho ka jiro oo keliya iyo sababaha dhinaanshaha keenay xisaab xidhku kuweeri waa la saari karaa golaha wakiiladu xaq bay u leeyihiin xalaale wixii su-aal madmadow ku jiro inay weydiiyaan hantidhowrka guud laakiin waxaan ka cudur daaranayaa documentska la yidhaha la keeno horta documents la keeni kara maaha waa documentska qaranka oo dhan 6 gobol iyo 3 degmo waa xisaab xidh u baahan in lagu soo raro gaadiid documents kala doonayo dakhliga miisaaniyadda dhinaanshaha ku yimi oo keliya ayaan anigu daraasad ku sameeyey maadaama aanan ahayn xisaabihii guud ee xidhay anigu waxaan ka warrami karaa oo keliya haddii aan xilka sii joogo xisaab xidhka 2017 xisaabihii guud oo xidhay ku-xigeenkiisii iyo la taliyay 3 qof oo xidhay xisaab xidhkan midna ma joogo xilka goobtana ma joogo bal isweydiin karaa oo kuweeri waa la saari karaa meelaha qaar madmadow galo meelaha madmadow gala waxay u baahan yihiin dib u noqosho iyo in la soo baadho oo dib loogu noqdo haddii lama odhan karo dee buug oo dhan baa madmadow ku jira laakiin meelaha qaar u baahan tafaasiil iyo clarification dib baa loogu noqon karaa anigu waxaan ka eegay oo keliya sida buugga ku qoran xisaab xidhka bayjajka 10 iyo 8 iyo bayjajka 6 iyo 7 heerarka 11350 11441 11442 11444 11455 14130 14160 11455 11640 14208 14150 oo aan ahayn heerarkaasoo keliya laakiin buugga waa wada haystaan dhinaanshaha dakhliga miisaaniyaddu meelaha ka yimi meelaha ugu burburan weeye dhinaanshahaas oo ku dhow 300 bilyan marka anigu meelaha wax ka eegay hedhadhna way jiraan wuu korodh ku yimi oo kordhay marka inta aan daraasadda ku sameeyey waa intaas oo aan hoos u eegay dhinaanshaha iyo meelahay ka yimaadeen wixii intaa ka baxsan hedhadhka ay ku yima aada kuweeriga saarteen ama madmadow ku jiro ama su-aalaha golaha wakiiladu ka qabo oo xaq u leeyahay in uu weydiiyo caddaymaha meelaha ay ka yimaadeen ama madmadowga meelaha ku jiro ee u baahan tafaasiisha iyo caddaymaha taana idinkaan soo gudbin doonaa haddii alla ka dhigo waxaanay u baahan tahay dib ugu noqosho iyo xisaab xidhka oo dib loogu noqdo in documentskii dib loo furo foojaradii iyo waaranadii oo dhan dib loo furo dabadan dib loo wada eego wixii su-aal laga qabo ee kuweeri saaran yahay mudanayaal xafiiska hantidhowrka qaranku wuxuu saaran yahay ilaalinta hantida qaranka oo ay ka mid tahay xisaab xidhka maanta aynu fadhinaa haddii aad dib u eegto xafiiska hantidhowrka qaranku waa xafiis dayacan gaadiid ma leh shaqaalaha la doonayo inay soo xidhaan xisaab xidhka shaqaalaha xisaab xidhka miisaaniyadda ama ilaalinta hantida qaranka ee dhammaan Somaliland daraf ila daraf mushaarkoodu waa $100
golaha wakiiladu wuxuu leeyahay soo jeedin wuxuu leeyahay qiimeyn wuxuu soo mas'uuliyadana ka saaran tahay oo saddex saxaafka mas'uuliyadda ka saaran tahay ayaa mas'uuliyadda ka saaran tahay mushaharka shaqaalaha iyo xuquuqda shaqaalaha waxaan maanta soo jeedinayaa مسؤولينta ku yimaada dekreetada madaxweynuhu waa shaqaale ku meel gaar ah waxaan soo jeedinayaa shaqaalaha barnaamijka xafiiska hantida dhowrka qaranka in mushaharkooda xuquuqdooda iyo gaadiidkooda intaba waajib badan ka saaray anigu waan ka baxay halkaas ku soo joojo su-aashaada koowaad inay ku jirto tashiilka dakhliga miisaaniyadda 2016 tashiilka waxaynu u baahannahay inaynu dub eegno maadaamana buuga ka muuqan markaa imika ma jawaabayo sabxadhadan aan idiin sheegay arrinta iibka aada weydiisay hantida ma guurtada ah wuxuu ku jiraa sabxadhadan aan imika idiin sheegay ee hoosu dhac uu ku yimi matalan cashuuraha macaashka guryaha waa sabxadhada idiin sheegayay okay dakhliga gadida hantida dawladda ku talagalku wuxuu ahaa miisaaniyadda aad ansixiseen 2016 30 bilyan dakhliga dhabta ah ee soo baxay 2016 sida buugga ku qoran waa wada aragteen waa 10 bilyan hoosu dhaca meelaha uu ka yimi ay ka mid tahay 25 bilyan 925 milyan marka taa hoosu dhaca dee miisaaniyadda way ka muuqataa buugga waad ka aragtaan dakhligaasi inuu miisaaniyadda ku jirana way ka muuqataa buugga wuu ku jiraa waa xisaab xidhkanna wuu iga horreeyey su-aasha saddexaad cid loo xidhay anigu 4 bilood baan joogay xafiiska hantidhowrka qaranka 4 bilood baan joognay xafiiska hantidhowrka qaranka waxaa dhammaadkii sanadka markaa tirakoobka hantida dawladda tirakoobka gaadiidka dawladda wixii aan lahayn sumadda gaadiidka dawladda intaasay 4 bilood ku dhammaatay marka taana annagu cidna umaanaan xidhin cidna maanaan eedayn shaqadu laakiin way socotaa
waa ka baxay